muuqaalku wuxuu ka furmay jawi ka aamusan oo ka culus. Jen wuxuu fadhiyey walaashiis horteeda, adduunyada dibaddana waxay u muuqatay mid fog oo aamusan. Seun waxay eegaysay isaga in muddo ah, indhaheeda oo wax baaraya, kadibna aakhirkii waxay ku hadashay cod naxariis leh. Hey, walaalka weyn, waxaad u dhaqmaysay si aad u yaab leh maalmahan dhowaan, ayay tidhi. Waxay u tiri si caadi ah, inkastoo werwer yar uu ka muuqday codkeeda. Ma waxaad u stresssan tahay imtixaanka qalinjabinta darteed? Jen wuxuu ahaa mid iska aamusan, joogitaankiisa aamusnaanta ah wuxuu muujinayay duufaan qarsoon oo ka dambaysay indhihiisa deggan. Markay aragtay aamusnaantiisa, sun madaxa ayay yara dhigtay, iyadoo xiiso iyo qosol yar ay wejigeeda ka muuqdeen. Codkeeda ayaa qaatay laxan kaftan ah, waxaan u weydaa qof adoo kale ah oo maskax fudud inta badan kuma dhex gala shucuurtiisa noocan ah. Weli ma oga inaan soo toosay oo aan awood helay. Marka indhaheeda waxba kama isbedelin, waxay u hubaal tahay inay u gasho inaan weli lacag la'aan u dhibtoonayno oo aan si dhib yar nolosha isku haysano. Cabaar kadib, Jen aakhirkii wuxuu ku hadlay cod deggan oo kalsooni leh. Waxaan ku ballanqaadayaa inaan caafimaad qabo. Laakiin daqiiqadii erayadaasi ka soo baxeen afkiisa, Seun eegadeeda ayay yara hoos u dhigtay, wejigeeduna wuxuu noqday mid ka fikiraya intay nafteeda la hadlaysay. Weli wuxuu isku dayayaa inuu inkiro. Ma sharafta ragnimo baa? Intay sii dhex socdeen moolka dhabada cidhiidhiga ah, tillaabooyinkooda ayaa si hoose ugu dhex guuxayay derbiyada dhexdooda. Iyadoonay ogayn, qof ayaa gadaal ka daawanayay. Hoos ayaa si aamusnaan ah u dhaqaaqay, isagoo fogaan dhowrsanaya oo raacayay tilaabo kasta oo ay qaadaan. Muuqaalku wuxuu u guuray dhanka mugdiga. Dhowr nin ayaa ku dhex ururay gudkooda, indhahooduna waxay si adag u saarnaayeen Jen. Mid ka mid ah raggii ayaa u soo dhowaaday Jen wuxuuna ku yidhi cod hoose, "Gudoomiye, ninkaas gabadh ayaa la socota." Daqiiqadii uu Jen taasi maqlay, dibnihiisa waxaa ka soo baxay dhoolatus qaloocan. "Tani waa ku habboon tahay," ayuu yidhi, isagoo awoodi waayay inuu qariyo farxaddiisa. Dhabadan malaha wax kamarado ah. Isla wakhtigaas, Jen oo weli si deggan u ag socda walaashiis ka yar, wuxuu dareemay wax kasta. Eegadii cadaawadda lahayd ayaa ku xidhnayd isaga iyo rabitaanka dilka ee aan la qarin karin. Tamartii caburiska iyo cabsida lahayd ayaa si tartiib ah gadaal uga soo dhowaanaysay. Wejigiisu ma isbedelin, laakiin cadho qabow ayaa ka kacday laabtiisa. Waa kuwii kharibnaa ee golaha ardayda. Runtii waxay leeyihiin dhiiranaan ay halkan iigu soo raacaan. Isagoon tilaabadiisa gaabin, Jen wuxuu si caadi ah gacanta u geliyey jeebkiisa. Wuxuu soo bixiyey earbudskiisii dhagaha la gashado, wuxuuna si tartiib ah oo naxariis leh u saaray dhagaha Yun. Wax kasta oo qarka u saarnaa inay dhacaan, iyadu ma ay maqli doonin hal dhawaq oo ka mid ah. Isagoo u soo jeestay, Jen wuxuu ula hadlay si naxariis leh. Heestan aad baan u jeclaa maalmahadii u dambeeyey. Waxaan u shidayaa si ku celcelis ah. Halkan dhegayso." Yun indhaha ayay naxdin ku ruxday, madaxeedana way yara dhigtay. Walaal, tan iyo goormaad bilaabay weysay dhegaysiga muusiga?" Isla wakhtigaas, maskaxdeedu meel kale ayay aaday. Hagaag, waxaan u malaynayaa in muusigu uu ka tarjumayo xaaladda maskaxeed ee qofka. Malaha waxaan si fiican u fahmi karaa walaalkayga weyn markaan dhegaysto. Jen uma uusan jawaabin, aamusnaantiisu waxay ahayd mid ula kac ah. Beddelkeeda wuxuu si tartiib ah u jaleecay gadaal dhankii raggii soo raacayay. Daqiiqadii uu guuray, jawigii ayaa isbeddelay. Joogitaankiisa ayaa dibadda u fiday, culays weyn oo aan muuqan ayaa ku cadaadiyey hawada lafteeda. Midabka indhihiisa ayaa noqday mid qoto dheer oo baraf ah, oo aan bini aadamnimo lahayn, fiiqan, oo aan naxariis lahayn. Markii eegadiisu ay ku dhacday kooxdii Jen oo dhan. Jen wuxuu daaran awooddiisa indhaha ku salaysan based ability. Hal ilbiriqsi gudaheed, heerarkoodii, levels, xaaladahoodii iyo maskaxdoodii ayaa hor yaalay isaga, iyadoo laga saaray wax kasta oo qarsoodi ah. Dhanka kale, Yun waxay ku jirtay farxad iyadoon waxba ogayn, iyadoo muusigii uu ku dhex milmay. Laxanka wuxuu ka buuxiyey dareenkeeda mid cad, awood leh, iyo si la yaab leh u raaxo leh. Dib ugu soo laabo dhabada kooxdii Jen waxay bilaabeen inay dhaqaaqaan. Mid ayay horay ugu soo tilaabsadeen, kalsoonidooduna ma ay ruxmin. Daqiiqada kadib, Jin laftiisa ayaa soo muuqday, isla weynidiisuna waxay ka muuqatay tilaabo kasta. Jen isna horay ayuu u tilaabsaday. Codkiisu wuxuu ahaa mid deggan, xitaa naxariis leh, laakiin erey kasta wuxuu xambaarsanaa culayska xusuustii tagtay iyo go'aan adag. Noloshiisii hore, sanadkii 2016 waxaan waayay xubintii qoyskayga ugu dambaysay. Ma ay ahayn ilaa 2017 markii aan dib u dhashay oo lay siiyey fursad aan dib ugu soo laabto. Markaas ayaan awooday inaan mar kale arko walaashayda yar. Sida uu u hadlayay, onkod ayaa ku soo ururay hareerihiisa, isagoo gariiraya oo ka soo baxa jidhkiisa. Dabadii waxaa ka buuxsamay tamar xooggan oo culays badan. Biriq kasta waxay ahayd ku dhawaaqis aamusnaan ah oo cadhadiisa ah. Maskaxda Jen dhexdeeda fikradaha ayaa ka guuxayay. Tani waa markii ugu horraysay muddo 7 sano ah oo aan dib ula midoobo qoyskayga. Sideed ugu dhiirataa inaad halkan timaado oo aad kharibto daqiiqadan? Dhanka kale, kooxdii Jen oo dhan ayaa horay u soo yaacay, iyagoo ka soo muuqday jiho kasta. Laakiin ka hor intaanay hal cag soo caga dhigan, qarax onkod ah ayaa ka dhex dhashay cagaha Jen.
iftiinkii indhoolaha ahaa ee biriqda dhexdeeda isagu wuxuu u muuqday mid qarka u saaran inuu gebi ahaanba baabi'iyo. mid ka mid ah raggii ayaa dhulka laga qaaday isagoo nadiif ah, jidhkiisana dib loogu tuuray ka hor intaanu si daran ugu dhacin saaxiibadiis, taas oo keentay saamayn lafo jebin ah. dhanka kale, adduunkeeda muusiga dhexdiisa Seun waxay sii wadatay inay si aamusnaan ah u heesto, iyadoo si farxad leh uga jaahil ahayd fowdada iyo burburka ka dhacayay dhowr tilaabo oo keliya oo ka dambeeyey. Jen wuxuu isku ururiyey feedhkiisa, onkodkiina wuxuu si adag ugu wareegay gacantiisa, isagoo ku gariiraya tamar rabshad wadata, hawadii lafteeduna waxay u muuqatay mid u ruxmaysa jawaab ahaan. argagax ayaa ka buuxsamay indhaha ninkaas, wuxuuna kor u qaaday gacmihiisa si uu isu difaaco, laakiin cabsida eegadiisa ka muuqatay ayaa ka shiftay. wuxuu mar hore arkay wax aan macquul ahayn. qofkii ugu horreeyey ayaa dhacay, kadibna kii labaad, kadibna kii saddexaad ayaa u dhacay si la mid ah qaabkaas naxariis darrada iyo joogtada ah. iyagoo aan awoodin inay iska caabiyaan ama xitaa ka falceliyaan, Jen ma uusan gaabin tilaabadiisa. wuxuu sii waayey inuu horay u socdo, iyadoo onkodku uu agtiisa ka guuxayo sidii makhluuq nool oo kale, kuna soo dhowaaday masaafada intii yarayd ee hartay. si kedis ah, nin quus taagan ayaa ku soo booday Jen, isagoo feedhkiisa u tuuray isku daygii ugu dambeeyey. Jen wuxuu si degdeg ah uga leexaday feedhkii, qabashadiisuna waxay ahayd mid sidii birta ah. waxaa xigay dharbaaxo jilibka ah, rak. lafta ninka ayaa ku burburtay saamaynta dharbaaxada. qaylo xanuun badan ayaa dhex jeesay dabada iyadoo ku dhex guuxaysa derbiyada. ka hor intaanay dhawaqaasi baabin, feedhkii Jen wuxuu ku dhacay wejiga ninka, xoogga ku dhacayna wuxuu ka qaaday cagaha, isagoo u tuuray hawada ka hor intaanu si daran ugu dhacin dhulka. isagoo ka fog saaxiibadiis Jung, Jen wuxuu ku daawanayay naxdin. wejigiisu wuxuu noqday mid caddaan ah, dhidid qabow ayaa ka soo baxay wejigiisa iyadoo argagaxu uu sidii baraf oo kale u dhex maray xididadiisa. maxaa ka khaldan ninkaas? sidee buu u noqon karaa midkan oo kale u xooggan? kalsoonidiisii mar kasta aan la ruxin karin ayaa gebi ahaanba burburtay, iyadoo Jen uu sii waayey horay u socodka. onkodkii wuxuu ku wareegay jidhkiisa sidii gaashaan nool, indhihiisuna waxay u iftiimeen ujeeddo dilaa ah. tilaabo kasta waxay soo saaraysay awood bini'aadamnimada ka baxsan. keliya in yar oo dad ah ayaa hadda haray. Jen wuxuu u tallaabsaday dhankii kii ugu horreeyey, joogitaankiisa xoogga leh iyo tamarta caburiska ah ee ka soo baxaysayna waxay ka dhigtay lugahooda inay si aan la xakamayn karin u gariiraan. kii labaadna wuxuu dhacay ku dhowaad islamarkiiba, isagoo ka adkaaday cabsi iyo xoog darteed. kadib markii uu labadoodaba ka dhigay kuwa miyir la'aan ah, Jen wuxuu gaadhay ninkii ugu dambeeyey ee taagnaa, Jung-jan. Jungen wuxuu noqday mid fariista, maskaxdiisu waxay ahayd duufaan aamin daradeed iyo argagax. markii ugu horraysay, Jen wuxuu dareemay wax aanu riyo ku arkin, cabsi run ah oo curyaaminaysa. cabsida ayaa qabatay Jung-jen si aan dhab ahaan hore u dhacin. isagoo isku qasbaya inuu si toos ah u istaago, ayuu qayliyey, codkiisuna wuxuu u gariiray inkastoo uu isku dayayay inuu u dhawaaqo mid khatar ah, waxaan ahay dilaaga ugu xooggan ee nooca daruuraha. waxaad moodaysaa inaad i heli karto. argagax iyo sharaf ayaa isku dhacay, isagoo awooddiisa ku soo daayay awood buuxda, iyadoo tamarta daruuraha ay si duur joog ah ugu wareegaysay hareerihiisa. laakiin Jen ma uusan gilgilan. hal feed oo burburiyey ayaa mindidii si nadiif ah uga tuuray gacanta Jung-jans, wuxuuna u soo tuuray dib u dhac dhanka derbiga dhabada ah. Jen wuxuu horay u soo tilaabsaday islamarkiiba, isagoo ku dhuftay dharbaaxo kale oo naxariis darro ah inta uu hawada ku jiray. dhiig ayaa ka soo qarxay afka Jung-jans, ilkihiisa ayaa burburay, jidhkiisuna wuxuu dhulka ugu dhacay dhawaq xanuun leh. isagoo si dhib yar miyir u leh, aragtidiisuna ay wareegayso, wuxuu arkay Jen oo dul taagan, oo aan u sheegin sidii bini aadam, laakiin sidii jinni oo kale. codkii Jen wuxuu dhex jaray hawada, isagoo qabow iyo naxariis darro ah, waxaan si cad kuu sheegay inaadan marnaba i dhibin mar kale. qaybtee ayaad ka fahmi weydshay? onkodkii ayaa si rabshad leh ugu wareegay jidhkiisa, indhihiisii mar barafka ahaana waxay hadda ku gubanayeen guduud qoto dheer oo cabsi leh, iyadoo cadhadiisu ay gaadhay meeshii ugu sarraysay. Jung-jen wuxuu naftiisa ka yidhi, feerahayga dhammaan waa jabayn, labada lugoodna ma dareemayo. qiimayntiisa heereed waxay ahayd mid dhab ah, Jen runtii ma ahayn mid rank ah. xaaladdiisu waxay ahayd mid aad u xun, dhiiggana wuxuu ka socday afkiisa. halkaas oo ay wax ka dhaceen, wuxuu bilaabay inuu ooyo oo uu raaligelin ka bixiyo cod jaban. kadib markii uu ngaystay tuugadiisa aan waxtarka lahayn, Jen wuxuu si kedis ah ugu qabtay laabta dhargashiga colar, wuxuuna u soo jeeday dhow. cod cabsi leh oo qabow ayuu ku yidhi, aamus. haddii aad hal cod soo saarto waan ku dili doonaa. isagoo hadlayay wuxuu mindi si adag ugu cadaadiyey wejiga Jung-jans. markii uu taasi arkay, Jung-jan wuxuu ku fikiray argagax, indhihiisu ma been sheegayaan. runtii wuxuu ii socdaa inuu i dilo. waa arday keliya, marka maxay tahay sababta uu leeyahay ujeeddo dil oo kan oo kale u xooggan? maxay tahay waxa uu soo maray? kadib Jen wuxuu sii waayey si qabow, waxaa fiican inaad si fiican u xasuusato erey kasta oo aan hadda odhan doono. daqiiqaddii xigtay wuxuu si rabshad leh Jung-jian ugu dhuftay gidaarka leh naqshada masaska Snake Patterned Wall.
Saamaynta dharbaaxada waxay ahayd mid aad u naxariis darro ah oo dildilaac ayaa ku baahday gidaarka ka dambeeyey. Isagoo hoos u eegaya indho baraf ah, Jen wuxuu ku hanjabay, dhammaantiin qashinka ah waad qudhmi kartaan inta aan ka cabsanayo, laakiin waxaa fiican inaadan marnaba i dhibin mar kale. Iyo haddii aad marnaba isku daydaan inaad waxyeello u geysataan walaashay, maya, haddii aad xitaa horkeeda ka soo muuqataan, mid ayaan idiin dhammayn doonaa. Jen wuxuu qaniiniyey afkiisa gudihiisa, dhiiggana wuxuu soo baxay dibadda. Xaaladiisu mar horeba waxay ahayd mid xun, haddana wuxuu noqday mid gebi ahaanba argagaxay. Jen wuxuu sii waayey naxariis darro, isagoon ka fekerin mar kale, mid kasta oo idinka mid ah waan ka dhigi doonaa inuu si joogto ah u dhumo. Ma garatay? Dhanka kale, Jen wuxuu keliya ku qaylin karay xanuun. Isagoo ka adkaaday xanuun iyo cabsi aan loo dulqaadan karin, Jen wuxuu kaga tegay Jen xaaladaas liidata, wuxuuna u jeestay inuu ka fogaado. Daqiiqadii uu indhaha ka qaaday, jidhka Jins aakhirkii wuxuu gebi ahaanba isku dhiibay dhulka, isagoo noqday mid awood la'aan ah oo aan awoodin inuu sii adkaysto. Dhanka kale, heestii waxay weli ka shaqaynaysay taleefanka Joyun, iyadoo dhegaysanaysa, waxay naftiisa ka tidhi, waxay u muuqataa mid aad u cidlo ah. Maxay tahay sababta? Heestan ay iiga dhigaysaa mid raba inuu ooyo. Waxaa laga joogaa dhowr casho oo keliya markii ugu dambaysay ee aan is aragno, laakiin wuxuu u dhaqmayaa sidii qof soo maray dhib iyo culays aad u badan. Sidee baa macquul u ah inaad noqoto midkan oo kale u cidlooda? Miyaanad mar kasta i haysan aniga oo garabkaaga ah? Iyadoo fikradahaas ay ka buuxsameen wadnaheeda, shucuurteeda ayaa aakhirkii weydaan weysay, waxayna bilowday inay si tartiib ah u oyso. Isla wakhtigaas ayay soo jeesatay waxayna ku tiri cod hoose, walaal, miyaanad kaftankan yara fogaynayn? Laakiin ka hor intaanay wax kale oo dhan, Jen wuxuu mar hore soo istaagay gadaasheeda. Gacantiisa waxaa ku jiray sanduuq yar oo ahaa hadiyad isaga uu u talagalay iyada. Markii ay tan aragtay, Yun gebi ahaanba way naxday oo ay la yaabtay. Jen wuxuu eegay iyada wuxuuna ku yidhi cod naxariis leh, Yuni, tan waxaan u keenay adiga. Dhoolatuska wejigiisa ka muuqday wuxuu ka dhigay mid cad inuu ka soo iibiyey hoolka sarifka, Kange hal. Markii Yun ay aragtay waxa ku dhex jira, indhaheeda ayaa u ballaartay naxdin iyo farxad dartiis. Makan baa qalinka sixirka ah ee holografiga ah, magic holographic pen. Waa qaabkii ugu dambeeyey ee ka yimid shirkadda Drag. Kani wuxuu ku kacayaa lacag ka badan hal eber. Halkeed ka keentay lacagta aad ku soo iibisay? Halkan ayay xalqadeeni ku dhamaatay asxaabta, waxaa idin leeyahay subscribe channelka idaahda si aan 3000 waqtiga ugu dhow aan ku gaadhno, wad mahadsantihiin.